بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قالقة أمير البنت هذا عالم كجوكتان وولاشين وماليش عندكم سلام إنسى سلامة مسلم السلام عليكم وحيد الله والله قالقة إيسو دوادة جنب الرقات والله يقول سبحان الله لايك سبسكرايب شير كومنت دير قلنا وحقنا ما شاء الله بإذن الله كريم والله آد أي يقول صوبتين ولا لها وحن لا شكرا جزاكم الله خير أي الله يمرنا بملك دالي دونو إن أيدينهم هذا إلي وايو معلم والبنت ولا لك يقول سوكر بده أنا waxay ii tahay maasha Allah anigana waxay ii tahay faa'iido asagana insha Allah wax unbuu iga faa'iidi doonaa ama ha noqoto wacyigelin ama ha noqoto cunto karin ama ha noqoto qiso ama ha noqoto wax alla iyo wixii adiga markaas ayada ah channelkayga kusoo bandhigo maasha Allah wax unbuu ka faa'iidi doonaa anna marna iguma qasaari doontid anna kuguma qasaari doono waayo mar walbeento aan wax soo dhigo walaalka commentiga ii soo qora oo i dhiirigeliya mar walbeento waxaan dhahaa jazaakumullahu khayr waayo idinka haddiina ahayn walaalahayga qaaliga ah Soomaali Maxameday maanta heerka aan taaganahay ma aan gaarneen waayo ama aniga ha noqoto ama gabar kale Soomaaliyeed ha noqoto ama hooyo kale inta Soomaaliyeed ha noqoto idinka passportkiina ma sha Allah na gaarsiiseen ku 10 kun gaarsiiseen ku kun gaarsiiseen ku aad ilaahay ku idmaayo 100 kun gaarsiiseen idinka le waayo haddiina idinka Soomaali gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed aysan ahayn supportkooda waxay ila tahay inaan meesha ka kici lahayn maanta laakiin ma sha Allah supportkiina ayaan caalamka rabnaa inaan kula tartanno ma sha Allah biidmillahi kariim ilaahay khayr ha idin siiyo ilaahayna jazaakumullahu khayr ayaa idin leeyahay ilaahay idinka abaal mariyo sida quruxda badan aad noo taageerteen annaka iyo inta kale inta oo gabdho Soomaali ah ama wiilal Soomaali oo YouTuber ah mar walba inta wallahi waxaan dhahaa jazaakumullahu khayr qofkii maanta hal subscribe siiyo mar walba oo duceeya waayo shalayta anoo hal subscribe haysta ayuu maanta wuxuu gaarsiiyay intaasoo kun oo subscribe ayaan haystaa alxamdulillah idinka ayaa gaarsiiseen idinka ayaana idin mahad celinaya iyo raxmaanka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr walaalahayga qaaliga ah meel walba intaad caalamka ka joogtaan marnaba idinkama daali doono in aan idin mahad celiyo waayo haddaan la isku mahad celinin qofkaas qof bini aadana maba ahanba waayo qofka bini aadanka walaalka ah ama subscribe haba ah ku siiyo ama taageeraha ku siiyo ama comment dhiirigelin ah ku soo qoro waayo mar walba inta jazaakumullah inaad dhahdid waayo qofkaas asaga laftirkiisa waqtigiisu ayuu ku bixiyay ayuu ku siiyay inuu ku daawado inuu comment ku qoro waqti waayo inuu waqti waxaasoo dhan waa waqti kulli uu ku geliyay waayo hadduusan waqti ku gelin lahayn maba uusan ku daawan lahaynba ummadaas meesha yaacayso oogama aada soconaateen soo marka waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah jazaakumullahu khayr ayaan leeyahay marnaba qof bini aadan ah inaa isku halaysid oo meel isku dhigtid wallaahi bilaahi waa shay mar walba markaa rabtid inaad guul gaartid ama aad tallaabo gaartid waa inaad qof bini aadan ah aada meel isku dhigin oo aad dhihin ani maantayto subscribe ma helayo ama waxaas ma helayo waayo waad is dhiganaysaa niyadaad iska jebinaysaa laakiin hadaa niyadaada ay kuu saafi tahay oo qalbigaaga uu saafi kuu yahay waxba kaama halaabayo laakiinse qof niyadiisa xun tahay qalbigiisa uu xun yahay marnaba horumar ma gaarayo meeshaas unbuu dhiiqada dhex fadhinayo weligiis iyo alihiis maasha Allah biidmillahi kariim ilaahay qalbigeena iyo maskaxdeena iyo qulubteena Soomaali ilaahay iskugu kaayo xifdiyo waayo Soomaali taageeraheeda iyo qalbigeeda wanaagsan iyo walaaltinimadeeda iyo dadku isku wada hal ma ahan umada jirana Allaha caafiyo baan leenahay wax kale inta dhigi karna ma lahayn ilaahay caafiyo ayakana waayo waa dad aban qofka bini aadanka horumarkiisa rabin marka maanta inta wax sameeysid waxa la rabaa in niyada laga jabiyo in qalbiga laga jabiyo in laga dhaadhiciyo waxa aad ku socotid kuwii ka horeeya wax ka waayeen niyada inaan la iska jabinin walaalaheena qaaliga aadna niyada laga jabin walaalka cusub oo YouTuberka ah insha Allah biidmillahi kariim waxun bad faa'iidi doontaa waxun bad sameyn doontaa waxun baad gaalkaas ilaahay haduu kaga soo qaado waxun buu ilaahay kaaga soo qaadaya laakiin sadaan niyada koow iska jabisid meelna ma gaaraysid haduu qalbigaaga xun yahayna wallahi inaad marna bil aadanka inaad la tartami karin waayo waxa ka xun tahayba qofka walaalka ah noloshiisa ka xun tahay maanta noloshiisa ku mashquulaysa mashquulkii aad wuxuu noqday mashquul.com waxay noqdeen 1 milyan wallahi ayakay u taala laakiin ayakay dhibaysa qofka qof bini aadan ku mashquulsan ama gabar walaasheeda inay lugoyso ku mashquulsan ayadoo ku qosulaysa bay labada lugood ka jaraysa laakiin ayadoo dhibaysa dib malahan yaana isku mashquulnaan dhihi lahaa wallahi walaalaheena qaaliga ah qof walba inta qofka waxaan
sorry videoga iga istaaga qof walba inta qofka kale inta noloshiisa ha raacdaan dhihi lahaa waayo nolosha bini aadanka haddaa maanta oo dhan mashquul iyo problem aa ku jirtid waxay ila tahay inaada marnaba aada noloshaada heer aysa gaarayn laakiinse haddaa noloshaada keliya ku mashquulsanaatid iyo gurigaaga iyo mustaqbalkaaga iyo aayahaaga waxay ila tahay inaa noloshaada horey u soconaysa laakiinse haddaa heblaayo sidaanay tiri heblaayo digsi bay haysatay heblaayo kirli bay wadatay heblaayo inta maraysay iyo inaa maxay samaysay inaa maxay yeesho waxay ila tahay inay noloshaadaba inay wax kaa dhacaan mooga inays waxba kugu soo kordhayn marka waxaan dhihi lahaa walaalayga qaaliga ah gabdhaheena soomaaliyeed walaalayaalo laba xarqiib iyo catiib ba idin xisaabinaya wayaan la isku mashquulin qof walba inta tiisaa ciirisay noloshiisaa ciirisay qof walba inta intii dhibtaa hoos taalla qof walba inta dhibtay oo hoos taalla bay ila tahay inaan ku mashquulo waayo haddaa maanta oo dhan aa bini aadan gabasaar intaa u qaadatid aa ku mashquulshid wallaahi adigana taada unbay ku taalla intaa adiga farta lagugu taagin adiga intaa hal far qof markaa ku taagaysa adiga 5 far kugu soo taagan marka waxay ila tahay walaalahayga qaaliga intaasna waa dhiirigelin aan ku dhiirigelinayo gabdhaheena Soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena Soomaaliyeed iyo inta mashquulka jecel qof walba inta mashquulka jecel ayaan u sheegay mashquul.com iska joojiye mashquulka hadii amaantayto aad haysatid noloshaada adiga ku anfacaysa adigana kugu kooban tahay haddii aad maantayto heer gaartidna heerkaaga adiga unbuu ku quseeyaa laakiinse inaa gabar islaameed oo nolosheeda iyo gurigeeda iyo ninkeeda iyo reerkeeda dhaqanaysa aa ku mashquushaan wallahi waa laga qurux badan yahay waana laga fiican yahay yaan la isku mashquulina dhihi lahaa yaan la isku maqnaan walaalahayga qaaliga ah qof walba inta qofka kale inta hadduu u gargaari karin ama uusan wax u sheegi karin faraha ka qaado shantaada salaadood iska tuko qof bini aadan ah inta ku mashquuli lahayd astaghfirullah dhe tusbax inta soo qaadatid astaghfirullah subhanallah walhamdulillah dheh because adigaaba xisaab kugu socotaa maxaa maanta adduunkan gabagabada taagan oo aakhiru zamanka la taagan yahay maxaa qof bini aadan hadalkiisa iyo kanuu yiri iyo kaaruu yiri inaa ku mashquusho wallahi waa laga qurux badan yahay walaalahayga qaaliga ah yaan la isxasdin qofka xaasidka ah meel ma gaaro habeen meel ma gaaraysid haddaa xaasid tahay haddaa walaalkaa ku maqan tahayna habeen meel ma gaaraysid laakiinse haddaa noloshaada wadatid oo mashquulka iska daysid oo haddii ilaahay ku idmaayo aad taada leh aa wadatid waxay ila tahay inaa heer gaari doontid alxamdulilah qof walba inta oo maantayta meel la tiigsada iyo heer gaaray waa qof asaga noloshiisa keli ah biisi ku noqday laakiinse intaad qof bini aadan noloshiisa biisi ku tahay waxay ila tahay inaad heer gaarin iyo meel la taabto iyo wax lagu hiigsadaba inaad gaarin waayo maanta dhanbad bini aadanaaba ku maqantahay goormaa tallaabo qaadaysaa markaa tallaabo qaadaysa waa markaa dadka iska dhiga tirtid oo labadaada dhagood intaa zam siisatid aan ku dhahay hore u socotid mashquul.com oo dhan intaa fiirisid aad tirahdid cidda roadway aa u qaadid laakiinse maalinkaa tidhaahdid waxay ugu mashquulaan koomba ka daba qaadanaya maxay saas ii tiri maxaa kan la ii yiri maxay kii kale la ii yiri adna horumar ma gaaraysid adna maanta oo dhan waxaa ku jiraysaa qalbi jab iyo moraal jab laakiinse qalbi jabkaas iyo moraal jabkaas waxaa uga gudbi kartaa markaa labadaada dhagood intaa dhub iska siisid aa horey u dhaqaaqdid laakiinse asaga qofkaas isceebsanaya oo wallahi intuu isla yaabo wuxuu leeyahay qofkan aa ku maqan tahay adigaba kuuma jeedaba noloshiisuu wataa adigana noloshaada iska wado marka walaalahayga qaaliga ah Soomaali Maxamedey meel walba intaad joogtaan waxaa idin dhihi lahaa walaalahayga qaaliga aan isjeclaano aan hal far noqono maantayto gabar walba inta oo meel ka soo jeeda waxaan dhihi lahaa walaali macaanay noloshaada iyo mustaqbalkaaga iyo aayahaaga yaan lagaaga mashquulin gurigaaga ku mashquul ninkaaga ku mashquul awlaadaada ku mashquul marka intaas dhamaysid qabayso shanlayso ninkaaga inaad la qosashid oo ka faraxsiisid isku try garee yaaban bini aadan oo dhanba dhagaha ka xiro albaabkana ka oodo waxba kuma soo gali doonaan biidmillaahi kariim laakiin saada albaabkaaga ka dhigtid aan ku dhaha garaash bologram wax walba intaa ku soo maray masiibo walba intaa ku soo galaysa shaydaamad walba intaa albaabka ku soo gargaraacaysa laakiin marka albaabkaaga ka xirtid oo indhahaaga ka xirtid oo dhagahaaga ka furaysatid cid ay u galaysa ma lahan ayada intay isku xishooto berita wadada toosan soo galaysa insha Allah ilaahina ha soo hadeeyo aadanaha ilaahay ha soo wada hadeeyo ilaahay inta qulubtooda ay xuntahayna Allah ha soo hadeeyo albaabada khayrka iyo albaabada jannada iyo albaabada irsaaqada Allah u furo waayo inta bini aadan ay ku maqanta albaab walba intuu ka xiran yahay ilaahay albaabada khayrka u furo ilaahayna dambigooda ha dhaafo annagana ilaahay noo dambi dhaafo laala isjecel Soomaali Maxamed oo isku naxariista Allah naga dhigo waxa idin leeyahay oo walaashin umaalisha idin dhahaysa khayrka ayaa idin la jeclahay ilaahay khayrka na wada waafajiyo walaalahayga qaaliga ah like iyo subscribe iyo share iyo comment dhiirigelin ah waxageena wixii mashquul kasta jecelna ilaahay caafimaad ha siiyo annaga inteena caafimaad ka qabtana waxaan leenahay ilaahay noo dambi dhaafo ayakana Allah u dambi dhaafo walaalahayna qaaliga ah wabillahi tawfiiq wa walaashin umaalisha idin dhahaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu